بسم الله الرحمن الرحيم ومع سنتهاي خيارتك كلنا ومعتيين runtii ciwaanka sida ka muuqata maanta waxaan isugu nimid inaan qiimeyn ku wada sameeyno dhamaanteen anaga kaliya nooma taalo xaaladda amniga maanta taagan cid ay ka qarsan tahayna anaga naga midan inay jirto ma filaayo amniga waa meesha ugu muhiimsan qofka muwaadinka Soomaaligaana oo dawladda kasta ee la doortay oo uga fadhiyo in ay u keento amniga waa meesha dawladaha Soomaaliya hadda dhismaha iyo nabadeeda ka shaqeeyaan halka aan galay ugu muhiimsan ay eegayaan iyo kamid way kala duwan yihiin marka dawladaha qaar waxay ka fiiriyaan la dagaalanka argagixisada ajnabiga sheegaya qaar waxay ka fiiriyaan ayaga inuusan ku soo faafin amni darada Soomaaliya ka jirta shacabka Soomaaliyeedna ammaankiiba u baahan yihiin dhamaanteena u baahan hadda waa aragtay xaaladda amniga mid qarsoon ma aha maxaa laga rabaa marka dadka hoggaanka haya ee amniga ka shaqeynaya ani aragtideeda waxay tahay laba arin oo ahayd in la qabto ayaan ii muuqan hadda in la qabtay koow waa amniga siyaasadiisa iyo amniga farsamadiisa labadaasaan u kala qaadaa dooda aniga waxaan qabaa siyaasadda amniga waa maxay siyaasadda amniga Xuseena wax ka bilaabay waa in laga heshiiyo qaabka amniga Soomaaliya oo noqonayo yaa ka heshiinaya waxa ka heshiinaya dadka stakeholderska oo ay talada ka goodo hadda dadkaas waxa ku magacaaban oo jooga dawladda federaalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda leh iyo labada aqal iyo maamul goboleedyada ama dawlad goboleedyada oo hadda ayaga noqday hanaan siyaasadeed wadanka ku soo biiray oo dhisan labadaas qolo inay ka heshiiyaan horta qaabka oo noqonayo amniga Soomaaliya oo heshiis siyaasadeed laga galo sababtoo ah dadka waxa kala dilay waxay ahayd is-aaminaad la'aan siyaasadeed is-aaminaad la'aan siyaasadeed intay jirtane ciidan la islama dhisa karo sababtoo waxa dhici karta inay qolo qabiil ama deegaan ama gobol ay aaminsan yihiin in laga yaabo ciidanka la dhisa ayaga dhibaato ku yahay marka waa inay helaan assurance wax la yiraahdo ama waa inay helaan damaanad ay helaan ah ciidankaas inuu ciidan qaran oo qolo halis ku ah oosan ahayn in laga heshiiyo marka hore waan ognahay xaaladda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada meesha ay ku sugan tahayna waxaan isku sheegayna maaha maantaba loo fadhiyaa in la heshiiyo oo laga heshiiyo dagaal siyaasadeed oo ayaga u dhaxeeya midda kale waa xaaladda farsamada waay farsamada marka waxa waay waa qaab dhismeedkii Xuseen sheegay ciidanka nambarkiisa tiradiisa hanaankiisa kala dambeyntiisa asluubkiisa intaba waa loo baahan yahay iyo hoggaankiisa intaba oo ciidankii wuxuu u baahan yahay in la hogaamiyo oo loo dhameystiro wixii u baahnaa agab xagga qalabka ciidanka ama mishaarkiisa oo loo dhameystiro ruuxdii wadaniyadeed ama diineed ama wadaniyad in la geliyo oo u baahan yahay hoggaanka oo uga fadhiya taasna hadda isagama sheekeynayna meesha ay joogto waxaaba soo baxdayba in hoggaankeenii oo noqday hoggaan asagaba isburinta siyaasadeeda ka imaanaysa inay ciidankeenii ay dhaawacdo tusaale ahaan hubka hala aruuriyaa la yiri haddana hubka hala qaataan maqalnay waa isla uun dawladdii ka timid labadiiba hubka hala aruuriyo iyo hubka shacabka ha qaataana isdifaacaan labadiiba dawladdii ka timid shabaab in muddo kooban looga adkaanayo inaan laga adkaa karin dawladdii ka timid marka waxaa muuqata xataa taas inay saameyn ku yeelanayso ciidanka iyo tabartiisa iyo waxa dhan in shabaabkii ay leeyihiin ideolojiyo fiican ay ku dagaalamaan dad ideolojiyo ay leeyihiin ciidankeena is ideolojiyo lahayn waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan in maaragtay ay muuqato in ciidankii niyajab oo ku dhacayo waxaa kaloo muuqata xiriirkii AMISOM oo ah dawladda meesha ay ku taagnayd lafdhabarka xagga amniga ay ku taagan tahay sida aan ka warqabno iyo dawladdan inuusan hagaagsanayn marka amni laga hadlayo waxaa fiican dhowr dhinac in laga fiiriyo kow xaaladdeena horta amni darradeenu imise la eg tahay labo macnaha tabaabusho iyo dadaal iyo wixii aan u baahnayn ma sameynay saddex maxaan gabnay oo naga maqan oo ama yaa ka maqan macnaha amniga sugiddiisa yaa ka maqan anigu waxaan isleeyahay horta amni darradeenu waxay gaarsiisan tahay mid 20,000 oo ciidan kale oo islaameed aniga markaan midug joogno islaameed waxaan kala jeednaa ummado kale ciidankood inay 20,000 oo ciidan inay noo joogaan iyo ka badan oo taas waxaa ku hoos xadfan in shabaab ay naga xoog badan yihiin sababtoo haddii la seekeen baxo waa naga adkaanayaan sida muuqata dad islaameed oo ummado kale aan u yeernay si aan u noolaano
marka xaalad foolxun waaye qof si u noolaadaba u baahan dad kale inuu dugsado ummad ajnabiya inuu dugsado runtii waxay muujinaysaa xaaladdeena say u taallo midda labaad amison annagu hadda kahor reporti aan ka diyaarinay ciidanka amison 2016 bishii labaad mar wadamada ciidamada amison isugu keenay ay shirhayeen oo Djibouti ku shirhayeen waxaan niri 46 bog weeye daraasad aan ka sameeyay amison sentence ugu horeeya waxa weeye ciidanka nabad ilaalinta ee African Unionka oo xamar jooga oo la dhaho amison Soomaaliya jooga al-shabaab kama adkaan doonaan aan ku bilownay waxaan ku xijinay al-shabaab waxa ka adkaan kara ciidan Soomaaliyeed oo tayeysan oo Soomaali ku wada dhan tahay oo professional ah oo ciidan ah baa al-shabaab ka adkaan kara waxaan kaloo ku xijinay qodobka saddexaad wuxuu ahaa tallaabo weyn oo micnale looma qaadin in ciidan Soomaaliyeed oo nuxur la dhiso waana tan hadda Xuseen iyo Cabdiraxmaan bay ka hadleen in London markii la tagay hadda in barnaamij cusub iyo qorshe la yimid ciidan booliis oo 30 iyo xoogaa ah iyo intoo kale oo maarad 12 ilaa 18 waxay ahaayeenba oo loo dhisi doono gobolada iyo xamar marka haddii amnigan u gaarsan yahay inaan ciidan ajnabi ah nala joogo saan magaalada Muqdisho u joogno haddii amison aan niri kama adkaan doonto de optionka kaliya aan haysano saan u noolaan waxa waa ciidan Soomaaliyeed oo micnale inaan sameysano amniga waxa la rabaa marka sidiisa horeba bulshada ayuu ka yimaadaa waxaa haboon in aan siyaasadeynin anaga mucaarad iyo maxaafid intaba iyo bulshada in aan si wada jir aan uga wada shaqeyno oo loo arko inuu yahay shay qof walba oo aniga naga mid ah taabanaya taas waa mid tan labaad ee xigta waxay tahay amniga magaalada Muqdisho gaar ahaan hadaan si u soo dhaadhaco guud ahaan wadanka tiisa maxay leeyahay ragga dhibaatada ku haya magaalada Muqdisho wadanka guud ahaan ma joogan oo kaliya caasimada oo kaliya waxa laga maarmaan ah oo mar walba asal u ah khayartii iga horeysana ay ka hadleen waxa waaye waa isfaham siyaasadeed Soomaaliya dawladdeena waxay u dhuntay isaamin darro wadankan dagaal sokoya ka dhacay dib u heshiisiin sax ah ma dhicin taas ayaa koskareysay inay suurtagal weysay in ciidan dhexe awood la dhiso in ilaa ay haddana mar walba oo tilaab la qaadaba yani waxa malaysaa muddo ka bacdi in dib loo noqonayo oo ay laga maarmaan tahay in aan runtii si sax ah u wada hadalno isu aamino in hadda madaxda dalka ee u fadhida shirka magaalada Muqdisho shalay maanta ishu ay ka hadlayeen waxa waaye amniga in si isku mid ah loogu wada soo horjeedo dadkan dhibaatada ku haya ummadda Soomaaliyeed taas ayaa runtii cinwaan u ah shirka sidaas ayuu u socdaa ciidamada qaranka marka dib u dhiskiisa oo aan soo bilownay arta ilaa hadda ciidamadaas security sector reformka waxyaabaha oo architecture-kii lagu heshiiyey iyo heshiiskii aan la galnay 42 dawladood oo caalamka ah oo ay nagula galeen shirkii London oo ahayd in ay naga caawiyaan markii aan habaysano oo heshiis ka galno siyaasadda amniga qaabkii oo aan numberka iyo howlgalka iyo waxa loo yaqaano amar qaadashada ama command and controlka markii aan kala cadeyno inay iyagana noola maaragtay nagu caawiyaan wixii dhaqaale iyo maaragtay farsamo ah heshiiskaas oo loogu yeeray security pact heshiiskii amniga oo 42 dawladood caalamka la galnay isna waa wuxuu basekiisa uu yahay in aan anagu waxaan heshiis ku nahay dhisano kadibna nagala caawiyo nuxurkiisa intaas uu ahaa dadka maaragtay waxa aaminsanahay intaan kulay ogahay inaanan heshiiskaas aad loo gudagelin oo aysan maaragtay doodo qaran oo loo baahnaa aanan maaragtay ka hor iyo kadibba aanan aad loo gelin oo xogaa maaragtay isfahamwa badan uu ka jiro laakiin nuxurku shirkaas heshiiskaas wuxuu ahaa in Soomaalidu ama heer federaalada ama heer gobolada ay wax ku heshiiyaan dunida u soo bandhigaan waxay ku heshiiyeen si looga caawiyo maaragtay waxaan ku soo gabagabeynayaa dagaalka aan kula jirno
kooxaha argagixisada ah oo shabaab iyo daacish. dagaalkaas dagaal noo suuragelin waayey in aan maaragtay qaabkii aan rabnay, because qof deganaa guri dhisan karaa. therefore dowlad walba waxay u taallaa iyadoo dagaalna ku jirta ciidamada inay dhisto ayaa mar walba maaragtay hawsha u taallay. dagaalkaas marka waa in priority laga dhigo, waxyaabaha ciladaha uu leeyahay iyo waay loola dagaalami waayey iyo waxaasoo dhan oo waxyaabaha oo hadda aan u wada fadhino oo dooda maaragtay aan u dayn doono. laakiin ra'yigayga markaan soo koobo, qorshayaashii lagula diriri lahaa dowladihii hore soo jiray waxbay ka bilaabeen, waa yaallaan. iyadaas in laga ambaqaado iyo ama lasii qurxiyo ayaan maaragtay aan rabay inaan maaragtay inay jiraan idiin sheego. meeshaasaan waxaan umalaynaa waqtigii waa dhamay. waa mahadsantihiin.